labaatan iyo saddexdii bishii lixaad ee sanadkan amiin saq dhexe dab ayaa qabsaday suuq mugdi oo ay ku ganacsanayeen kumanaan ruux oo danyara. saddex maalin kadib waxaa Gaarisa soo gaaray wafdi ballaaran oo horkacayay musharax madaxweyne Raila Amolo Odinga wuxuuna booqday suuq mugdi oo gabi ahaanba isku bedelay garoon. wuxuu waqtigaas ballan qaaday lacag gaaraysa 5 milyan. Nadiif Jaamac oo horay u soo noqday barasaabka ismaamulka Gaarisa haddana isla xilkaas u taagan ayaa dadaal iyo juhdi ku bixiyay. waxaa maanta suurta gashay in musharax madaxweyne Raila Amolo Odinga uu lacagtii u soo dhiibay Senator Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Xaaji. Governor Nadiif Jaamac Aadan iyo Senator Cabdul ayaa lacag gaaraysa 6.5 milyan ku wareejiyay guddiga suuqa iyo Dr. Cali Tobane oo ah gudoomiyaha guddi culamo ah oo iskood isku xilqaamay. lacagtaas oo la yaboohay horaan oo haddana nagula wareejinayo baan caawa meesha inaan ma aragta annaga haddaan nahay guddiga culummada ayna nala socdaan guddiga suuqa inaan lacagtii galabtan aad arkayseen aan ku kulannay masaajidka Ibn Qayyim hortiisa oo ballan qaadeen senatarka iyo governorka inay lacagtaas nagu wareejinayeen. waxaan halkan horta ku qirinaynaa lacagtii in nagula wareejiyay ayadoo 6 milyan iyo 500 kun. 5 milyan waxaa laga soo qaaday Raila Odinga oo tartamayo madaxweynenimo. 1 milyan iyo 500 kun waxaa ma aragtay bixiyay senatarkeena Cabdul Xaaji. marka halkan annaga haddaan nahay guddigii isku jiro culumadii iyo ma aragtay guddiga suuqa waxaan ku qirinaynaa lacagtii la yaboohay maanta ama caawadan inaan rasiif garaynay baan halkan ku qirinaynaa. Sheekh Xasan oo matalaya golaha sare ee muslimiinta Kenya xafiiskooda Gaarisa ayaa u mahadceliyay musharax madaxweyne Raila Amolo Odinga, Nadiif Jaamac Aadan iyo Senator Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Xaaji. wuxuuna carabka ku dhuftay in Raila Odinga uu soo xasuustay waqti xun sidaas darteedna asagana loo abaalgudo codkana la siiyo maadaama uu caawiyay waqti garab ay u baahnaayeen. annaga siyaasad meeshan umaan culamo haddaan nahay laakiin ruux kasta oo maartay dadka walaalahan ee dhibka gaaray gacan u fidiyo afarta lugood iyo labada gacmood iyo lugaha ku xumbaarayna. ruux kasta oo masaakiinta gubatay maxaan ogsoonahay dad hata shoog ku dhacay oo dab shidanin qof baan garan meeshii imaato ka gubatay salaadeen ka noqoto meeshii bay tagi way ka noqon maxay la 7 jeer bay meesha ku gubatay waxba hadda ma haysto kudin inta kale waa sida ruux kasta oo dadka u gargaaro nooc ahaadaba ilaahay baan yaan u barinaynaa subxaanahu wa tacaala. waxaan mahad u celinaynaa Raila Amolo Odinga ee xasuustay waqtigan khatar maarta dhibka badan. ruuxa waqtiga cariiri aad ku jirto ku xasuusto dadka kuguma jiro dadka markasta adiga waa xasuusanaan. ilaahayna waxaan oga barinaynaa wuxuu doonayo ee adduunka inuu ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala. waxaan mahad labaad aan u celinaynaa gafanaha Nadiif Jaamac iyo senator hanaga Cabdul Xaaji Yuusuf. ilaahay waxaan oga barinaynaa maxaa yeelay ayaga tilaabo badan way isa soo bixiyaan. ilaahay waxay doonayaan khayr adduun iyo khayr aakhira. ilaahay ayagana ha u fududeeyo. Senator Cabdiqaadir oo Raila Odinga u soo wakiishay inuu lacagtan soo gaarsiiyo guddiga suuqa iyo culumadii hawshan u istaagtay ayaa ugu horreyntii xusay in hogaamiyaha wanaagsan markasta ballanta uu oofiyo. sidaas darteedna Raila Amolo Odinga ballanqaadkiisii uu ka soo baxay wuxuuna culumada iyo guddiga suuq mugdi kula dardaarmay in dadka aadka u liita ay ka bilaabaan eel gaarna ay ku fiiriyaan. Kiongozi mzuri ni kiongozi ule mwenye anaweka ahadi yake. Na Raila ametuonesha ya kwamba alitoa ahadi na ametimiza ahadi yake. Na leo mimi niko hapa kufikisha hiyo ahadi kwa wale ambao wanahusika. Na yetu ni kuwaomba na kuwarai makomiti yote ambayo tuko hapa na komiti ya SUPKEM wakiongozwa na chairman wao na komiti ya soko ambayo iko hapa ambayo inaongozwa na chairman na chair lady. Yetu ni kuwaomba wakati munapata nafasi ya kugawanya hii pesa, kwanza muanze na wale ambao wako kwa hali ya chini, wale ambao wanahitaji msaada kuliko wengine. Muwafikishie waone vile wanaweza kujiinua kimaisha.
ugu dambeyntii Nadiif Jaamac Aadan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in lacagtan la helo maadaama ay si nabad ah ugu wareejiyeen dadkii laga ballan qaaday culays badan iyo xilna uu ka degay maadaama markii Raila Odinga ballanqaadka uu sameeyay uu garab taagnaa mas'uuliyadaasna uu dusha saartay wuxuuna ka codsaday in hadduu xilka barasaabnimo ee Gaarso loo doorto in guddiga iyo culimada ay kala shaqeeyaan sidii suuq mugdi looga dhisi lahaa suuq casri ah maadaama uu ku jiro waxyaabaha uu Governor Nadiif uu siinayo muhiimada koobaad horta aniga waxaan ku faraxsanahay inay horta iga degtay mas'uuliyaddii oo balanka anoo garab taagan oo meesha ku qaaday horta inay iga degtay horta waan ku faraxsanahay maanta lacagteen horta halo waa lacag weyn sii weyn ma aha waxaan rajaynayaa in lacag kale baan meelo ka filhaynaa taas inay soo gaartaan rajaynaa insha Allah tacaala oo aan daba socdaa naftayga marka insha Allah tacaala taasna wayno imaan doontaa san rajaynayo suuqaas waa la qabanaynaa dadkaas faraha masaakiinta ee wax ku gaaray waa isla qabanaynaa insha Allah tacaala marka hadday sheekha markuu hadlay sheekh Xasan waxaan ka naxay wuxuu yiri maamo waxaa jirta meesha maalin kasto imaato oo fiiriso meesha ka gubatay hadda aniga waxaan ilaa sheekh maamada oo kale ama tan aan ka siin ama tuka ama tutayda aan siin horta maamada horta walaga boobsiya waxooda in kartooda ay nagu dhicin had maamada oo kale maartay iyo wixii la midka ah bal soo qara oo aan boobsiin aada u daahina ana kulli iniga baad nidaamkeen naga taqaanin oo saad wax ku wadiin ee goorta aad qaybin inaga naga garanaysin laakiin qof noocaas oo kale oo laga yaabo inuu qutiyooyinka kale meesha u ahaa yani hadday jiraan maamulin noocaas oo kale ah oo si yoomi ah oo imaan hayaan ama yani waxay daba socdaan nala socodsiiyo anaga aan raadin wax degdeg ah haddii midna yar daahayso oo nidaam ahaan ay ku daahayso laakiin sida Cabduul uu sheegay waxaan ayto waa amaana hala boobsiyo dadka on hala gaarsiiyo si degdeg ah si muxuu ahaa dantii lagu talagalay maarta ay qabato insha Allah tacaala anigu hadduu ilaahay kursiga ii sahlo waxa ii qorsheysan oo horeba iigu qorsheysnaa in suuq mugdi aan dhisin horta Sheekh Xasan maan la qabaa ana hadda magaca ii qoran oo iigu qoran proposalka oo dhismaha suuq mugdi ma aha waxa ii qoran Garissa Central market ii qoran mooshad adigu meeshaad ka ma ana iga qaadatay mas'ala ya anu magacaas ay qorna oo proposalka igu qoran marka naqshadii iyo plankii wixii oo dhan waa diyaar marka horta waa farxad weyn in caawa aan la fadhiyo waan soo waafaqnay waa farxad in caawa aan la fadhiyo committee iyo culimadii oo arrintan hadda ku jiraan wali culimadu waxaan dhihi lahaa hawshan tan kelima ee wada oo ku jira suuqan ha ka bixina maxaa yeelay waa hore oo aan suuqan inaan bilaab aan doonahay waa la siyaasadeeyey Muse Farax ana fahmaynayo Farax soo saxsanayst siyaasadna la galiye dad waxaa jira meeshan siyaasad ku dhaxwadaan laakiin ana safarta cid aan u siyaasad aan ka aqbalay ma jiro ilaahay idinkiisa waxaan rabaa suuqa inuu taariikh ay noqdo hadduu ilaahay soo galiyo suuqan inuu taariikh weyn inuu qotaan rabaa reegaarsa taariikh u noqoto oo bilicda magaalada aan hagaajino marka suuqan inaan insha Allah lacagna waan u hayaaba lacag lama waanaay ama tu dibadda ka imaato aan balka ka imaato inaan dhisno balankiisa wixii waan in soo dib aragtiinba waan oo diyaarba marka aad baan ugu faraxsan in caawa committee aan la fadhiyo nidaamkii haddii ilaahay haddaan nafaas helno oo ilaahayna kursiga noo sahlo inaan la fadhiisto oo bal aan isla fiirno sidii hawsha sida ugu dhow lagu bilaabi lahaa taas ayadana waan rabi lahaa insha Allah tacaala